iyadoo gudaha jaamacadda Camud isku diyaarinaysa qaabilaadda boqolaalka ardayda danaynaya inay ku biiraan waxbarashada heerka labaad iyo heerka saddexaad ayaa maanta hormuudka dugsiga daraasaadka sare ee cilmi baarista jaamacadda Camud Dr. Cabdisalaan Xasan Muuse waxa uu ka dhawaajiyay war farxad leh kaasoo waqti xaadirkan semesterkan cusub chance u siinaya in ardaydii hore isku diiwaangelin kari weeyday ama fursadaha diiwaangelintu ay ka xidhmaan ay mar kale ku helayaan fursad ay isu diiwaangelinayaan semesterkani Dr. Cabdisalaan Xasan Muuse ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qorshahan cusub ee jaamacadda Camud ay keentay maanta ay tahay taariikhdu 14 bisha Abriil 2024 ahna sidoo kale 5 bisha Shawaal 1445 hijriga waxaanu fariin kooban idin ka soo direynaa xarunta dugsiga daraasaadka sare ee cilmi baarista jaamacadda Camud taasoo ah bishaaro iyo warbixin kooban oo jecel inaan idin kala wadaago arrin ku saabsan new semester intake sidaad ka warqabteen dugsiga daraasaadka sare ee cilmi baarista jaamacadda Camud waxa aanu diiwaangelinta sameyn jirnay hal mar sanadka taasoo ahayd marka sanad dugsiyeedku caadi ahaan inoo bilaabay waxbarashada oo ah bisha 9aad ilaa bisha 10aad codsiyo kala duwan iyo duruufo keenay in ardayda qaarkood ay xilliga ka soo gaari waayaan khaasatan qalin jabinihi iyo registration ka xidhmay ka bacdi dhacaya iyo dadka oo qaarkood ay gadaal ka yimaadeen waxa aad noogu batay codsi aad u tiro badan oo walaalaha qaarkood ay rabaan in arinta wax laga bedelo isu noqosho iyo muraajacaan u sameynay anagoo waafajinayna standardka caadiga ee East Africa oo dhan laga isticmaalo waxaanu postgraduate-ka u wareegnay inaanu sameyno laba xilli oo diiwaangelina oo labaduba ku salaysan semester based diiwaangelinta hore waa sanad dugsiyeedka bilowgiisa oo bisha 9aad bisha 10aad waxa sidoo kale maanta aan idinku bishaareynaya oo fariintaydu ay daaran tahay waxaanu idin furnay diiwaangelin cusub oo saad ka aragteen page-ka jaamacadda iyo iclaankan idin kula wadaagnay aanu new semester intake aanu sameynayno bishan haddaynu ku jirno inta ka dhiman ayaana ka dhiman diiwaangelinta daraasaadkuna waxay toos inoogu bilaami doonaan bisha 4aad aakhirkeeda 25 bisha programyada aanu bixinayna waa intii caadi ahaan awal iskuulku bixin jiray programska dhammaan ka bixi jiray hadday tahay dhinaca business administration-ka masterka finance and accounting-ka project plan management-ka human resource management-ka monitoring and evaluation-ka dhinaca health science-ka public health-ga saddexdiisa takhasus caadi ahaan aad uga barateen dugsiga oo ahaa epidemiology-ga human nutrition iyo health promotion-ka waxa intaa dheer oo isagu sanadkii dhawaa inuu bilownay oo inta campusba ka furmay haddana sidoo kale inoo sii socon doona qaybta medical statistics and health data science-ka isaguna waxa jira qaybteedii faculty-ga science-ka oo faculty-da ugu da'da weyn lana ah waxa weeye iskuulka waxa hore inoogu bixi jiray waxa weeye research and data analysis-ka waxa isaguna muddooyinkii daba baxayay applied statistics-ka oo hadda raacii koobaad ardayda ka baxday ay PhD u baxeen iyo sidoo kale data science-ka waxa isaguna qaybtaasi sanadkii dhawaa inuu furnay applied mathematics-ka oo isaguna waxa weeye inoo furmay ilaahay mahadi haddana inuu sii wadi doono waxa isaguna inoo furmi doono biochemistry sidaas inoogu soconi kuliyadihii kale shareecadii waa wada ag socdaan waxa isaguna jira faculty-ga engineering and technology-ga oo ay noo furan yihiin construction management-ka waxa isaguna aynu doorkan furi doonaa waxa weeye urban planning-kii iyo geotechnical engineering-kii water engineering laftiisa isaguna waa inoo bilaamaya insha Allah waxana sidoo kale isaga laftiisa qaybta inooga furnaan jiray master of data science-ka awal wuxuu ahaa master of data science and information security waynu u kala jabinay laba program oo master of data science-kana gaar baa loo qaadan master of cyber security ama information security-gana gaar ayaa loo qaadan doonaa marka faculty-gaasina waa inoo diyaar isaguna mar kale waxaan leeyahay ku soo dhawaada dugsigiinii waxaan idin furnay semester registration-ka cusub waana arrin aanu isleenahay wax badan bay ka tari dadkii ka habsaamay iyo intii kadib dhacday fursadda sugina kari la ah waxa weeye u adkaysan waa inay sugaan sanad dugsiyeedka dambe iyo bisha 9aad iyo bisha 10aad waxa weeye dambe hadda fursad semesterkan ay ku bilowdaan waxbarashadoodii oo ay waxa weeye yarwana ku galaan ayaanu idin haynaa ku soo dhawaada dugsiga wixii inta macluumaad ka badan waxaad ka heli doontaan waxa weeye contactiska dugsiga page-ka jaamacadda waad mahadsantihiin jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh